السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. soo dhawaada walaalaha khayrka jecel ee ku xiran janalkani iyo walaalaha cusub ee nagu soo biiri doonaba aan ku wada salina nabigeena Maxamed sallallahu alayhi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Maxamed sallallahu alayhi wasallam. seetihiin iska warama xaaladiina ma nabad qabtiin dhammaantiin waxaan idin rajeynayaa khayr caafimaad bashbash barwaaqo cimri baraka leh cibaado suuban Allahumma amiin. Allah subxaanahu wa ta'ala waxaa uga baryaynaa walaalaha xanuunsan caafimaad degdeg ah oo sariic ah oo xanuun u ka dambeynin. Ilaahay waxaa uga baryayaa qof kasta oo culays saaran in culays ka dulqaado, wiil kasta iyo gabar kasta oo muslima oo jecel guur xalaal ah oo aan awoodin. Ilaahay waxaa uga baryaynaa guur xalaal ah oo degdeg ah, wiil kasta oo u baahan inuu guursado oo aan haysanin dakhli ama irsaaqad ku filan. Ilaahay waxaa uga baryaynaa faraj khayr qabo, shaqo khayr qabto iyo wax uu ku farxay inuu Ilaahay siiyo. Inta xabsiyada ku jirta Allah ka soo deeyo, inta muraadka Allah u fududeeyo, inta xaamilada Allah uurka Allah u sahliyo culayskiisa, inta foolnaysana foosha Allah u fududeeyo biidni raxmaan. dhammaanteena muraadkeena iyo muraadka muslimiinta Allah sahlo. waa toobiga ciwaanka ku soo aragteen waa qisaskeeni aan uga hadlaynay istighfaarta iyo faa'iidadeeda. sida aan wada ogsoonahay istighfaarta iyo faa'iidadeeda qisooyinka laga arkay maaha kuwo la soo koobi karo. haddaa dhahno sanado ayaan ka sheekeynaynaa xitaa maaha kuwo aan soo koobi karno, balse waxa iyo muhiimadda aan usoo qaadanayna waxay tahay inaan dhiirigelin ka helno faa'iidooyinka ay leedahay istighfaarta in aan isxasuusino. Allah subxaanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay udcuuni astajib lakum, barya waan idin ajiibayaa. haddaba nafteena yaanan ka bakhiilin inaan alla bari aan sameyno iyo alla xaggiisa inaan u cararno. aayado quraan Allah subxaanahu wa ta'ala waxa uu ku leeyahay faqultu astaghfiruu rabbakum innahu kaana ghafaara yursil as-samaa calaykum midraara wayumdidkum biamwaalin wabaniina wayajcal lakum jannaatin wayajcal lakum anhaara. haddaan u baahannahay ubad iyo roob iyo xoolaha inay noo dararaan maal, meel kasta oo culays naga haysto waa inaan u cararnaa istighfaarta iyo u toobadkeenka Ilaahay. waxaa laga yaabaa culayskaas iyo dhibaatadaas inay nooga imaatay dembi aan galnay, nafteena aan ka galnay ama dad kale aanba ka galnay, inuu culayskaas Ilaahay noo saaray ayaa laga yaabaa. marka si uu Ilaahay culayska nooga fududeeyo aan badino istighfaarta siiqooyinkeeda kala duwan. waxaa dhihi kartaa astaghfirullah alcadiim wa atuubu ilayh, Allahumma innii astaghfiruka wa atuubu ilayk. siiqooyin fara badan ayaa loo istighfaarsan karaa. kudhi haddaadan awoodin xitaa inaad ku dhahdo luqadda carabiga ilaahayow adaan kuu soo toobad keenay, ilaahow adaan kuu soo noqday, ilaahow ii dembi dhaaf, ilaahow dembigayga kii hore iyo kii dambe mid weyn iyo mid yar, midaan ogahay midaan ogeynba ilaahow noo dembi dhaaf. ugu wanaagsan in la duceysto ama istighfaarta waa xilliyada salaatul leylka ama xilliga salaada subax 1 saac ka hor ah iyo 1 saac salaada subax ka dambe ah. intaas muddadaas inta u dhaxaysa in la akhristo ayaa fiican. istighfaarta ama ducada ama bariga wax kasta oo xaaje Ilaahay ka leedahay waxay ugu fiican tahay xilliga suxuurta la yiraahdo 1 saac oo salaada ka hor ah ayaa ugu wanaagsan. marka insha Allah kumanaan iyo balaayiin marbo intuu nafteena ay kartaba insha Allah Ilaahay aan istighfaar weydiisano aan u gudagalna qisadeen. intaas waxay ahayd hordhac iyo isku dhiirigelinta istighfaarta. qisadani u horeysa waxa ay leedahay gabadhani waxaan akhrinayay bishii Ramadaan 60,000 oo istighfaar ayaan maalintii dhahay. maalintii oo dhan waxaan daldalayay istighfaarta ayay dhahday. kadib dad badan ayaa waxay i weydiinayaan oo asxaabteyda kamid ah wajigaaga iftiin iyo waxaan ka dareemaynaa cadaan maxaa marsatay, maxaa iska bedelay. marka waxay leedahay aniga waxaan ka arkay istighfaartii in dadkii dhan i weydiinayaan wajigayga inuu iftiimaayo oo nuur saaran tahay. anigana waxaan dareemay in ay tahay istighfaartii sababtoo ah afkayga marnaba kama deynin ayadoo ay tahay bil Ramadaan. fadligaas Ilaahay iska laayay dhahday. thumma istighfaartii aan farabadiyay ayaan ugu wacanay dhahday wajigayga in iftiin ay ka dareemaan aadanaha ugu hareersanay. gabadhani waxa ay leedahay
waxaan ahayn aniga iyo wiilkayga iyo ninkayga. Waxaan aad ugu baahnayn ayay dhahday lacag. Culays ayaan haystay. Waxaan bilaabay ayay dhahday inaan istighfaarta badiyo akhriyo. Kadib alxamdulillaah subaxdii markaa istighfaarta badiyay Ilaahay wuxuu ii soo adeejiyay dhahday hooyaday oo i siisay 500 oo lacag ah. Ilaahayna niyadeydii iyo sidii aan jeclahay wuu ii rumeeyay. Alxamdulillaah istighfaarta ayayna iigu hirgashay ayay leedahay. Gabadhani waxay leedahay challenge ama go'aan ayaa nafteyda la gaaray inaan istighfaarta afka ka joojinin. Subaxdii marka aan waxbarashada xagga jaamacadda u sii socdo ayaan bilaabi jiray. Marka aan ka soo noqonayna waan soo akhrin jiray. Waxay dhahday Ilaahay ayaa in badan u istighfaarsanayay. Waxaan u niyeysanayay ay dhahday niyadeyda macnaha inaan lacag ku helo. Lacag ayaan aad ugu baahnaay dhahday oo xagga jaamacadda ah. Ilaahayna wuu igu siiyay lacagtii intii in ka badan ayuu Ilaahay igu siiyay ayay leedahay gabadhan. Wiilkani waxa uu leeyahay waxaan shaqo ku helay istighfaarta oo aan badiyay darteeda. Wuxuu leeyahay waxaan ahay wiil yar oo baagamuudo ah oo aanan haysanin wax shaqo ah reerkiisana iska dul saaran. Arrintaasi waxa igu noqotay culays sababtoo ah waa dareemi kartaa nin dhalinyaro ah la rabay asaga inuu mas'uul noqdo balse aanan haynin wax shaqo ah. Allah ayaa in badan bariyay istighfaar fara badan waa la imaaday. Ilaahay waxa uu ii sahlay riyadeydii shaqana waan helay alxamdulillaah. Waxaan ahay nin isku filan. Qisadani waxaa ka sheekeynaysa gabar waxay leedahay in adeertay waxay ahayd mid la qabay muddo badan. Isbitaallo badan iyo daawooyin badanna way isku dayday dal iyo dibadna meel ay aadin ma laha. Intaasi kadib marka ay quusatay oo niyad jabtay ayay waxay bilowday inay akhriso suuratul baqara istighfaartana ay joogtayso. Muddo marka ay waday alxamdulillaah in adeertay hadda waxa ay leedahay uur waana 4 bilood. Ilaahay yaa mahad iska leh. Istighfaarta ayayna guushaas ku gaartay. Gabadhani waxay leedahay waxaan qabay madax xanuun fara badan. Waxaan joogtay istighfaarta muddo bil ah markaan waday. Alxamdulillaah waxaan isku arkay ayay dhahday waxa iga imaaday dhiig markuu iga imaaday maalintii 31aad. Alxamdulillaah waxaan dareemay maalintii 31aad ayuu waxa ka imaaday dhiig kadibna waxa ay dareentay inuu ka fiicnaatay madax xanuunkii farada badnaay. Ilaahayna waxa uu ku caafiyay istighfaartii. Qisooyinkeeni maanta intaas ayaan ku soo koobaynaa. Qisooyinka laga helay istighfaarta haddaan dhahno waan keenaynaa maalin walbeento ama waan soo gudbinaynaa. Ma aha mid la soo koobi karo. Xiisaheeda iyo wanaageedana ma aha mid dhammaanayo. Marka Ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu naga mid dhigo mustaghfiriinta oona noo dambi dhaafo dambigeena mid weyn iyo mid yar midaan ognahay iyo midaan ogeyn iyo mid hore iyo mid dambaba. إلهنا وحان كبرينا إنه حقا نغسقه. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا الاتباع. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا الاجتناب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إلهي نودن بداف إلهي نون حريست أمورها نودن الله نوسهلو. إلهي وحان كبرينا قفكين يجيردين إنو سنكل منين خاتمدين إنو خير كديغو كلمة أودن بيس أفكينا إنو كديغو لا إله إلا الله محمد رسول الله. وهذه هذا وما سنتهين فيديوغين هلكن أيوكو إجيا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحان إذن كرجينيا إنا ولا لها كالوسي شير قريسان خيرك لايك تنا آثارتان فيديوغا كمبلال كنا آثار تصي أو نقطة قفك وهرية أصول فيديوغين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.